قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعانو wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawo doontaan waxa ugu dooron Sheekh Shariif oo loo diiday inuu ka qayb gala caleemasaarka Axmed Madoobe raali gelin ka diiday mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya Faysal Cali Waraabo sheegay in farmaajo ku howlan yahay sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa madaxweynayaasha Jubbaland iyo Somaliland xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo sheegay in Sheekh Shariif oo u socda Axmed Madoobe oo ah nin saddex mar qiyaamay Puntland ku faantay inay heshay ciidamo xoog leh oo ka difaaci kara cadawgooda afar cunug oo walaalaha ku geeriyootay dab qabsaday gurigooda warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah ciidamo badan oo reer Afghanistan oo ku dhintay shil gaadiid oo ka dhacay dalkaasi haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka inta aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee himilo qaran ayaa si kulul uga hadlay xayiraadii la saaray diyaaradu la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda Soomaaliya xisbiga ayaa sheegay in aad ugu xun yihiin wixii maalintii shalay ahayd ka dhacay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee Aadan Cadde ee diyaarad sidii Sheekh Shariif loo diiday inay Kismaayo aado xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha xisbiga himilo qaran oo uu ka tirsanaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xalay warbaahinta kula hadlay hoyga uu Sheekh Shariif ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay cambaareenayaan wafdiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee loo diiday inay Kismaayo tagaan Sheekh Shariif oo la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wafdiga horkacay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa shuruud adag ku xiray in ay raali geliyaan xubno uu hogaaminayay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa raali gelin ugu tagay hoygiisa Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya xubnaha gaaray hoyga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee ka socday xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa iskugu jiray wasiirro iyo xildhibaano waxaana hogaaminayay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Shariif ayay ka dalbadeen mas'uuliyiintan inuusan la hadlin warbaahinta oo markii uu ka soo laabtay garoonka soo buux dhaafisay gurigiisa iyagoo isku dayay inay si hoose ugu raali geliyaan xayiraadii loogu geystay garoonka Aadan Cadde xilli shalay uu ku wajahnaa magaalada Kismaayo madaxweyne Sheekh Shariif ayaa gabi ahaanba iska diiday inay si hoose loo raali geliyo isagoo ku xiray raali gelintiisa shuruud ah inay dawladda ay soo saarto bayaan cad oo looga garaabaya xanibaadii shalay loogu geystay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayuu cid Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa weerar afka ku qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna sheegay inuu yahay konton jir wata fikirkiisa barre waxa uu sheegay Faysal Cali Waraabe in Farmaajo uu necib yahay saddexdii jamhad ee Soomaaliya ee talada ka tuurtay Siyaad Barre ee SBM SNM iyo USC Faysal ayaa sidoo kale ku eedeeyay Farmaajo inuu yahay nin qabiilaysta ah dhinaca kale Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo dawladda Itoobiya kala kaashanaya sidii Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi gacanta ugu soo dhigi lahaa Soomaaliya waxa uu soo baxay Maxamed Siyaad Barre oo tajira ayaa u soo baxay qolada la yiraahdo maaragtay buuda markuu dalaana ma dhinto lama boqoro buudaaka madaxda kale ilaa la helo mid naftiisu gashay Farmaajo hadda waxa gashay nafti Maxamed Siyaad Barre hadda arday camalku sameeyay dhowr meel ayaad arkisaa waa mid oo wuxuu oranaya qabiiladu ha dhacdo wuxuu magacaabana waa qabiil wuxuu dadka u neceb yahay saddexdii jabadood SBM SSDF iyo SNM u neceb وأنتم سياد برا نبع محمد سياد برا وحي يسكت إنه كريستيان تقاطو سيلو عاويو هو تيم كبوك الغوريو ويلي بوكو مالتو كنيا هذا حاوسان كان يروحوا له هذه عتسوق تجا
in axmed say u qabto Ethiopia Soomaaliya u qabato iyo Somaliland oo soo doona ka yeelo maamulka Puntland ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen xalay waxay si kulul ugu cambaareeyeen xayiraadda socdaal ee dowladda federaalka ay saartay shacabka Jubbaland iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maalintii shalay ahayd dowladda ka hor istaagtay inuu Kismaayo tago si halka uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dowladdan uu kala dhaxeeyay khilaaf adag Puntland ayaa tilmaantay in tilaabadaasi ay tahay mid baalmarsan sharciga iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalku yaala Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in arrinta dowladda Soomaaliya ku celisay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ahaa ninkii farmaajo soo baray ummadda Soomaaliyeed ay tahay mid gadaal u dhigaysa hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu eedeyn kulul u jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed Daahir ayaa sheegay in Sheekh Shariif uu ka qayb galayo shahaado suulis caleema saarayo sida uu hadalka u dhigay oo la jeeday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu sheegay in xayiraadii dowladda ay saartay Sheekh Shariif ay tahay mid sharci ah ammaankiisana ay ku xiran tahay waxa uu sheegay Daahir Amiin Jeesow in Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland oo dhowr mar uu qiyaamay Sheekh Shariif xilligii maxaakiinta haddana uu la yaaban yahay sababta uu aadayo ninka diidan dowladnimada Soomaaliya Sheekh Shariif madaxweynaheenu shakhsiga oo u socdo leeyahay waa soo caleemasaara ilmaha yaryarka xataa way ogyihiin in meesha ay doorasho ka dhacdo war idinkada ka saxaafadda ruuxiina inaad u ka sheegtiin hal raba beeshii caalam dowladii federaalka cid walba warkooda waa la diiday shahaado suur maldahay ayaa meesha u tagaa shahaado suur meesha u tago sheekii qiimaha badnaa madaxweynaha dalka soo noqday aabihii ummadda Soomaaliyeed soo noqday inuu shahaado suur meesha ugu tago wallahi aniga markii lii sheegay arrintaas aadaan ugu xumaaday Sheekh Shariif ruuxiisu ayuu saddex mar uu qiyaanay midowgii maxkamadaha marka uu la ahay ayaa asaga oo midowgii maxkamadaha la ahay ayuu urur qarsoon oo arrintaas iyo xeran oo Itoobiya ku xeran oo xildhibaanimo intuu sii xarsiga ka soo dhow xildhibaanimada ayuu haddana shabaab ka jeclaaday shakhsiga sidaas oo dowladiidka inuu Sheekh Shariif arrimahaas oo dhan adiga waxa weeyaan inuu aado sax ma dalka kan dowlad baa ka taranta dowladdaas waxay tiraahdaan ka soconay hooyo 3 caruur ah ku weyday dhacdo naxdin leh oo ka dhacday magaalada Boorama wararka aan ka helayna magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa sheegay in 3 caruur ah oo walaalo ahaa ay ku wada geeriyoodeen magaaladaasi kadib markii dab xoogani qabsaday guri ay ka dhignaayeen magaalada Boorama dabkaasi ayaa galaaftay nolosha caruurtan yaryar kuwaas oo guriga kaligood ku sugnaa xilliga ay dhacdadaasi naxdinta leh galaafatay naftooda sida ay noo sheegeen goobjoogayaal 3 caruur ah oo da'dooda u dhaxaysay 2 jir ilaa 4 jir ayaa ku naf waayay dab qabsaday gurigooda oo ku yaalay xaafadda jarjarka ee magaalada Boorama hooyada dhashay caruurtan ayaa waxa lagu soo waramayaa inay guriga ka maqneed xilliga ay dhacdadaasi dhacaysay waxaana ilmaha geeriyooday dhamaantood ahaayeen hablo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa tababar u soo xiray askar gaaraysa 250 kuwa oo ka mid ah ilaalada madaxtooyada Axmed Karaash ayaa xaflad ciidamadan tababarka lagu soo xirayay ka sheegay in maamulka Puntland yeeshay ciidamo awood buuxda u leh inay soo celiyaan dhulka Puntland ka maqan waxa madaxweyne ku-xigeenka faray taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland inuu si degdeg ah u diyaariyo xiriyihii lagu talagalay tayeenta iyo tababarka ciidamada qalabka sida ee Puntland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arko oo runtii ay raacdo munaasabadii kowda August oo farxad weyn inoo ahayd oo aynu aragnay ciidamada maxay tahay daraawiishta ama ciidamada Puntland ee kala duwan waxay soo bandhigeen waxaan farayaa taliyaha guud kuwa kan aad iyo aad bay tababarkoodii ugu guuleysteen waxaan faraynaa oo kula dardaarmaynaa inay ciidamada Puntland oo daraawiishtu ugu horeyso inay tababaradooda iyo xariyaha hadda ballan qaaday oo aad hawshooda ku jirtaan in la dedejiyo waa idin faraynaa
shil waxyeelo ka soo gaartay askar badan ayaa ka dhacay dalka Afghanistan. In ka badan 20 ruux ayaa geeriyootay kadib markii gaarigii ay la socdeen uu ka dhacay buur dheer oo ku taala waqooyi galbeed dalka Pakistan. Warbaahinta dalka Pakistan ayaa sheegtay dadka ugu badan ee shilkan ku geeriyooday ay yihiin askar fasax ka laabtay, waxaana gaariga uu ka dulbooday buur dheer oo dhulka u jirta in ka badan 8,000 oo fiid, waxaana buurtaas ku taala xuduudda u dhaxaysa gobolka Kayhar iyo Gilgit Pakistan. Afhayeen u hadlay maamulka Gilgit Pakistan oo la yiraahdo Faisal Faaruq ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee militariga Pakistan ay ka qayb qaadanayaan gurmashada dadka dhaawacmay. Ku dhawaad 10 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la geeyay xarunta caafimaadka gobolka. Dadka dhibaatada gaartay waxaa ku jira caruur yaryar oo rakaabka ka mid ahaa. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.